aramidan ihayse uurkayga gubaysa addooni ogaano ilmadaniga tirin aramidan ihayse uurkayga gubaysa addooni ogaano ilmadaniga tirin urugada dhibtaan qabo kama oon baxaye aroos may la gelaysaa urugada dhibtaan qabo kama oon baxaye aroos may la gelaysaa halkaas markii ay maraysay wax kastayba way isbedeleen jawigii maxkamadduna waxa uu galay xaalad kale kadib markii ay sikadiisa u soo gashay maxkamadda Lucky mana uu jirin qof awoodaya inuu afkiisa ka hadlo mudane garsoor waxaan ahay mid ka mid ah family Lucky wadlaya batin sidan u dhacday waxa weeye wax walba oo jiray waxa ahaayeen wax beena muhro soo socday wax walba waxa u dhacay sida Ismaaciilow ها صاحبي aniga saaxib ku yeeray Hey. halkan kugu balamiye Hey. wax kale kugu yeerinay waxa weeye inuu rag asxaabana وانا in badan aqoon isku leh وانا waxa weeye inuu arrin family oo anaga xaafadeeda waad qayb ka noqotay واي markaan iyo arrinkaas aan kugu yeeray wali xogogaan labaatay هي inanta Lucky la raahday gurigaaga joogta ها لك in maabtu noo suqay daray وانا سيف عمون قراي markaan iyo arrinkaas aan kugu yeeray ka wada hadallo صح kowdii صح markaa saaxiib hawshaasaan doonayay inaad wax igala horta waad saxan tahay arrintaana horta waan ka warhayaa sax kolley dee dhallinyaran iyagunbaa kolley isfahmaa oo aad iyo aad dadkan waaweyn waxaa laga yaabaa inaanay hadday noqoto dadkan dee qalbiyadooda aanay wax badan ilaalin baa la suurtagala aad iyo waanay fiican tahay horta kol haddaad ii timi waxbana ma xumaanayaan waxaan u baahanuun horta arrintaas dee way iska fududaanaysaa arrin adag ma ana halkaa sababtay ku timi waxay ahayd markii daynantii halkaa dibadda loo soo saaray ee halkaa madow soo dee habeen madow dibaddaa soo istaagtay ayaan anagu si u wadaa isaga soo horbaxnay sababtaa darteed ma horta u kaxeeyey cadnaanaan horta oo dee isna halkaa joogaan halkaa u geynay dee horta ammaano iyo badbaado ayaa meesha u ahayd meel saaxiib horta arrin wanaagsan baa samayseen sax waxa weeye abaal la waadi ka hayaa sax iminkana waxaan u baahanahay inaad sidii gurigaa ugu soo celin lahaa inay gala shaqaysaan sax waxa weeye horta arrinkii guriga kaga soo baxday aniga sababteeda lahaa waay oo cadnaan waa kii mehradeeda ka shaqayn jiray waan garanayaa markaan iyo cadnaan asafaamiga ula dhaqmi jirnay sax in xaafadda ka tirsan oo kale sax arrinkan markaan arkayna dhallinyarnimo ay qaaday sidaasaanan anigu hawshan u sameeyay haddaan is leeyahay cilib xumadana yeelaasa mabaa sameeyeen haweeney markaa saaxiib inay nin wanaagsantay waa ogahay صح aqoon isuguma kala laabta صح cadnaan laftigiisu nin wanaagsan waa ogahay صح صح marka all ready wax kugu yeeray inuu bal arrinkii inanta ay sida guriga ugu soo celin lahayd adila qabataan maadaama uu idinku inantii gacanta ku haysaan oo gurigiina ay joogto arrinkaa la shaqeysaa maana arrinka fadhiya horta way fiicantahay saaxiib aad baan horta u mahadsan tahay intaa hore aan ku sheegana waxa weeyaan iyadoo waxaan ku sheegay sababtii halkaa ku tagtay halkaana si sharaf iyo karaamo leh ay horta wallaahi ku joogtay anagoo dad dhalinyaro aan camalna hayn baa iska hayba subaxii baan kayo meel u ciyaaci jiray waad ka warhaya xaaladda waa sakarsa waddanka shaqo ma jirto dabeetana haddana wax yaraanu soo helno uman roodhida iyo biyaha cad uman biska ku jira صح iyadoo dee in noloshaad ogeyd ku soo martay ahaydna iyadoo sidaa tahay haddana waxay ku qanacsanayd nolosha caynkaas taasna waxaa ku muujinaysaa qofku jacaylka uu qabo qofka kale ma jecel yahay marka labadan qof horta waa laba qof aad u jecel adduunkuna waa wax la helo oo horta dee marna la helo marna la waayo waan gartay waqtiga yaraha ayaa dee waqtigu adduunku dhibtu way iska jirtaa laakiin wax kasto adag waqti kasto adag qofku iyo shakhsiyadda ibni aadamtinimadu baa ka adag
marka taas horta waa wax laga bixi karo laakiin niyo aniguna de fikirkaagaas aad baan soo dhaweynaya waana fiican tahay waxa halkan igu timid waa wanaagii arrintaas sababta aad ma si fiican loo socoto marka niyo waxaan doonaa gurigiina sababta lagu celin karaya haddii mushkiladii halkii taalo waa yara dhib horta ninka adeerkii baa guriga ka soo saaray waa aniga abtigay way sababtu waa ku sheegay looga soo saaray waxa weeye niyo abtigayna waa nin aad u kulkulo aad iyo aad u kulkulo aniga ninka gabadh bay iska daayo intaan ka meeraysan karayo ma ka meeraystaa aan khilaaf iyo sugu iman waa waalid sax waxa weeye niyo problem family wax ka xun ma jiro way wada xaafadda iska qabsataan waxa weeye ka soo hurdo doonaysa ma fiican wax qurux badan ma wanaagsan aad wallah isaga laftigiisu ku degdegay arrinka isaga laftigiisu inuu deynanta dibadda u saaro ku degdegay saaxiib kastoo anagu waana ku raacsanayn oo taariikhan odayga ku degdegay oo ku soo horjeednaba haddana waa walaashayo in abtadayo meel ma kala tagno waxa weeye anna waa ka qoomamaynaya maadaama anigu sababta guriga looga saaray وانا هاد marka saaxiib inaad arrinka aad beel la saartaan ma idin ka fadhiyaadiyo adnaanba oo ina taasaan guriga ugu soo celin lahayn afalowgeed qabano waad mahadsantahay horta saaxiib waxaan ka arrimaha ka soo dhan wanaga soo wada garanay laakiin niyo qodob baan markaa ku kordhinay horta aan fikraanahay marka maadaama imka labadii qof aan ag joogon kulli xoogaa muddooyinka aan kaaga dambeeyay aadna ay u fiican tahay dadku haddii ay rabaan in loo tixgeliyo rabitaankooda muhiim tahay qodob niyo labada qof aad bay isu rabaan waan istoonayaan diinteenna wax hor istaagaya ma jiro labada qof in istoonaan wax adduun oo lagu xidhi karayo wax shardiina ma jiro niyo anigu waxay ila tahay sax guriga lagu soo celinteedii maadaama dhibaatooyinka jirta waxaas ba jira inaynu ka fikirno oo ninka ka wada hadalno labadan qalbiyada istooniya sidaan isugu soo celin lahayn reerkiina ay arrintaas ay u fahmi lahaayeen aan dadkii ugu qancin lahayn balni arrintaasaan ku sheegay sidee xaafadii waxaan ay suurtagal u tahay ba arrintaas niyo saaxiibtu waa qorshe fiican ka wadhay laakiin ana xaafadan kaaga aqoon badan way waxa weeye xaafadaydu waa kibraaniin wey arrinka in labada qof la israaciyaana suurtagal sidoo ku noqdaa way adagtay waxa weeye niyo adeerkay waa weeye sidoo ku ogolaanayo inanta maadaama uu soo koriyay uma malaynayo inay dheeldheel tahay way marka arrinkaasi ka fikir badan iyo qorshe adag buu baahanyaa waa si fiican saaxiibka u dhig xal hadaba xal baynu raadinay حتى هدين حلقة وينين نجح حل سمينا واجه وحيرك وكعرب بناء وحانين وكقص بينا إن يجو رالك أهرن كسمية يجو رالك أو يجو كفر حسن بقى يعني أنت سمية أهرن كاسوا أهرن أدوات إن أذكرك يسقو رالية وين أنت هنا كارعيو أنا جو نجحنا ويقعدك سيتي سوقي ليه أوكي لكن يو حوي أرتو أنا إني labada qof istoortay israaweed demokraanaysa dadka isku soo xushay inay israacaan oo ku taageersanahay hadii aan suurta gelin karayna imkada aan kula fadhiyaan suurta gelin lahaa marka waxaad iga warantaa sidee baan adeerkay isagoo raali ka arinkan de uu sameyn karaa geesi baa tayortaniyo koodhe marka saaxib qorshaana ku haya qorshaha kaliya tii ku aqbalay horta waa in la kidilo yaa ليش اللي دليل؟ ساس ما صح. استجي. قشان. waxaan suurtagalahay suurtagalaha ka dhigin hada. dhigayso saaxib. habboodi. waxaan dilayno wax kasta horta geesinimo iyo wanaag baa halka ku timid. diyaar sidaad ugu tahay in arrinka galaan horta wad ku maasan tahay. laakiin waxa ku sheegay wadada kaliya hayna. waa inaynu metel baan sameynaa metel. لكي ودمتay laga bilaabo imika laki wadami odaygan adeerkeed aan wadnaha istaajinaysa ma istaagayda ma istaagay haduu wadnimo la qorshaha socon aniga igu hale saaxib inta ay dul qaado inantaas in la dilibin ku metelayna waa gartay guri aan u soo diyaarino halkan ah oo aynan aanu imaadeernahay ay kashana waynu geynina gurigaas markaa way maqantay way dhooftay markaa qorshahan la wado oo dhan halkaas ay joogaysaa gurigaas ay joogaysaa war waaya halkaas aynu xitaa waxaynu doono kula soconaynaa xilligan doono ugu tagaynaa iska farxsanaanayna haye qoladani markii murugooto ay iska muruga dhameystaan ay iskoohin dhameystaan oo dilka miyaan aas iyo loo baahnayn
waa sidee midda kale reerkaygu miyaanay aasin inanta taas waxay naga caawinayaa ciidamada qaranka kama shaqeeyaan amniga kaliya laakiin qalbiyada dadka xataa way ka shaqeeyaan inay dadka hawshaana si fiican u qabtaan baad ku leedahay qalbi dad waxaan aad isu naqaanaa gabadh ciidanka kamid ah qaybaha sirdoonka oo waliba kiisaskan dadka qaabilsana inantaasina hawl fiican way la qaban karaysaa haddii arrinta uga warrano oo ilaa ciyaalnimadeeda wax soo ilaa dugsigeeda hoose wax soo qorshaha horuusoo dejisayba hadda ayaan doonayaa inaad adigu ilaa anba qaado oo aad ila dhammaystirto adigana kugu xidhan tahay sababtoo ah maadaama hadhow haddii guriga xitaa loo baahdo waxaa loo baahan doonaa qofkii cid maydha si markaa aanu intaanu dallada u soo gashanno oo niqaamiyo u soo xidhanno maadaama qofkii la maydhayay nin yahayba hadduu doono oo la maydhaya oo qof ninuu noqon karaa qof kaluu noqon karaa sheekada markaan samayno lama waayi karo waxaa jira dad shil mugnunka ku dhinto waalwaalan dad aan ehel lahayn baa jira maalin walba shil u dhinta dawladdu ay aastay hawshaa qaabisho haddaynu hawshaa u fara dhudhubnanayno gallana iyagaa inoo soo gudbin kara kadibna iyadoo lagu matelayo un qofkii ayaanu hawshaa geli karnaa fikirkaasi ma ku cajabiyey sidee la tahay aniga horta saaxiib wax badan inay iswaafajino way ka odhan way halkaa qofka la dilayay lagu matalayay laki waxa weeye waa runtaayoo dad si kediisa u dhintaa way jiraan dad aan dad lahayn oo ehel lahayna way jiraan oo dhintaan dad badan oo dawladdu dee iyagu aastana way jiraan ama jeel majnuunka ku dhintaan ama qofku si kaleba ha u dhintee dad ajaani baa jiro oo aan waddanka u dhalo intay ku dhintaan haddana dawladdu aasto waxaasoo dhan waa ku dareensanay laakiin maadaama inagu aynaan ahayn dad dawladdii ka tirsan arrinkani see buu u suurtogelayaa see baa loo heli karayaa qof lakii inoo bedelaa marka aynu sheekada dhimashada ku matalayno hawshan midda kale dee intuu ehel bay leedahoo dadkeedii baa jooga waxa weeye qofku markuu dhintana dadkiisa aastay iminka qofkan dawladdu aasimaysantee maadaama ehel iyo dad ay leedahay markaa haddiiba ay dhimato oo la soo qaado xaafaddii la keenayna qofkii laki ma ahee sidee bay suurtagal u tahay in qofkii see lagu qancin karaya halkaa iyadaa laftigeedu waxay u baahan tahay in qorshay u baahan tahay horta way fiican tahay marka qofkan horta waan soo helaynaa aad ka hadashay oo inantani aan ku sheegayaa waa aad bay xagga ugu xidhan tahay hawshaasna haddaynu si fiican ugula hadallo waynoo fududayn karaya marka waxaynaan taa ugu mashquulin qofkan la aasayo markaan soo qaadno waxay noqonaysaa qaybta keliyata dadkoodu xaqiijinta marka la maydhayo hawlahaas macaqabada taas adigu kadinkan baa istaagaysaa laba qof oo kale anaga niqaamiye wuxuu soo gashanayna waanu gelaynaa hawshaas anagaa kala tuurayna qofkii maadaama la kanfay oo kafantii lagu xidhayna wax mushkiladoo ka imanaysaa ma jirto waa lagu ridayaa unoo nin iyo naag wuxuu yahay cidba kala garan mayso markaa iyaga indhasarcaad bay ku noqon doontaa sheekadanaysa warniyo waxa weeye horta sheekada inta ugu badan waxaa dhaqaajinaysaa waa gabadha aad sheegaysa ciidanka haddiiba ay gabadhani keento qofkii meydka ahaa dhakhtarkii iyadu geyso waxa weeye hadhow tolo marka loo soo sheega faamiligii dee faamiligiina qofkii soo arkaan ku qanacmay u baahan marka taa laftigeeduna qofkii ma ahee taa laftigeega idna qorshay u baahantay horta midhkaasi horta waa mid muhiima waan haddaynu taa ka fikraynaa ma kula tahay ka waran haddaynu samayno waa qodobka ugu muhiimsanay markay jecel yihiin inay arkaan ma kula tahay in aynu taas samayn karno haddaynu iyadii soo qaadno maadaama qofkii naxsan yahay way dhimatayna lagu yidhi oonu iyadii soo qaadno iyana kooma iskiliso si wax kooma ku jira kadibna marada markuu saa uga rogo wejigeeda arko abtikaa inuu naxaaba laga yaaba ama adigu baad garab joogto aad si wax uu naxayba ka dhigtood qasab ugu soo jeedo abti soo dhaqaaqsa miriyeyman halkaas waa si wanaagsan oo aanad jaanis ba siinin uu kusii dul istaago waa qorshe aad u fiican waxa weeye haddaba intaa marka laga imaado waxa kaloo iyaduna meesha taalla abtigii waxa weeye sidii loogu qancin lahaa hadhow toole gabadhan iyo ninkan way soo noolaan dee way soo noolaata caqligal waa low horta taas qasabay ku noqonaysaa horta mee qasabay ku noqonaysaa isagaa rumaysan doonaa dhacdadii iyo qaabkan waxaan u dejinayna sheekan u sheekan doonaa wuxuu noqon doonaa film buu ku noqon doonaa maskaxdooda iyo maankooda ka yaabiya ha baqan laakiin adigu waad ila qaatay soomaa qorshahaas iyo haddii ay ku suurtagelayso in gabadhaasi taakan ay farxad ku helayso horta saaxib taakan wada socon wax kastoo yimaadana horta waa ka wada tashanaa si joogtaana insha allah waynu kulmi doonaa waxa weeye hawshaana kulley qayb lixaad leh waa ka qaadanaya anigu maadaama aniga walaashay oo lakii farxaddeedu ku jirtana hawl kastoo iga soo gaaraysa aniga dhabarkaan hurdinaya markaa niyow wixii kale iyaguna u baahan in laga fikro
marba tallaabadaynu gaadhno ayuunba horta aynu ka yara fikiri doonaa laakiin muhiim waxaa iminka hadda qorshaha la qaatay wax waliba inoo fudaanaya iminka hawshaaseen degdeg caawa wayna hawsha qorshe aad u culus way ka dhigay caawa horta hawsha fulin iskuiska wadada iskuiska xira oo luuqyadaas mid ka mid ah ee hawsha ku fulinaysa adeerkeed khadar baan filaya inuu caawa la soo hadlaysan ka maqlayay aan warkay ugu dareensiinaysay markii dhaweydna aan finik ku hayay inuu la soo hadli doono kulley waxay iminka dhacaysa waa kii ka xanaaqsanaa arrintii guriga ka dhacday marka waxaa laga yaabaa hawshaas jaaniska yar ka faa'iidaysan marka waxaan samaynaa iyadina anaa u warramaya arrinta ka dhaadhicinaya qorshahoo dhan anaa wada sheegaya xaggeeda anaa dhamaystiray adayg badan bay u baahan tahay adaygaasna inu ku gelinaysaa waana arrin serious maadaama xataa dawladdii dee la gaaray xiriir dawladda xadhig qura inaan qaladna looma baahan arrin aad u culus weeye in yar hadday wax ka qaldamaanna innagaa khatar ku geli karna aad marka waxaan u baahanahay wax walba ka fikir horta ufa sax waa saxan tahay maskax in lagu soo filimkaas hadduu si fiican noogu dhammaystirmo wuu inoo qurux badnaanaya hadduu laakiin xadhig qura qaldamo horta inaga fashilmaya afkeenu waa isu ammaan kulankeenuna wuu yaryahay hawshaasna taaka nagu wada soconina waxaad iiga warata qaabkan anigu fulinayo caawa dilka adigu waxaad u fulinaysaa anaa kuu soo diray inanta xarunta si ay dhida ka shaqaysaa hawshana si fiican bay noola qabanaysaa iyadaa ku matalaysaa adigu mididaada jaqafaad soo qaadanaysaa si layfad u matalaysaa dil caadiya mididaas kadibna halkaasaad isku tuuraysaa isla iyada uunbaa dhakhtarka imanaysa oo dhanse qofkan miidkaaba la keenay hawsha adu intaa marka samayso waxay ka dhameeya xaafadii ba iska tegaysaa iyadaa dhammaystiranaysa waa si wanaagsan okay waa qorshe fiican okay marka laki walaal wax waliba horta way hagaagayaan kowdhay saan kuu sheegay marka waxaan doonayaa adigu sida aan kuu sheegay samee lambarka aan kuu qoray garaac lambarkaas inantaas ku sita guriga ku gelinaysaa adigu gurigaas way cidna ma arkaysid laga bilaabay imka filimka dhimashad kuma talaysa iyaga laftirkooda markay soo dabcaan waxay sameeyeen iyo waxay ku qoomeeyaan iyaga raalli ka noqon doona inay maalintay taagan yihiin inay haddii maanta aad joogi lahayd inay ku siiyaan maalintaasunba go-aan ku gaadhay aadna aad soo baxaysa afkeenuna waa isu ammaan adiguna walaalintaa ka taxadir intaas samey insha allah yaa walaalaki aad baan kugu kalsoonahay intaas samee walaal waan samaynayaa iyo horta naasir soo kutibada inagu rag saaxiibaan ahayn oo ilaa waqti day isku ciyaarahay waqti hore soo wada maraysa si aad baan xasuusta niyo arrin kale maarbi waay baa jira anigu halkayga baan iska galaa halkayga gashaa meeshii waligi iibiyo meeshii wadi iibisay markaan iyo ni waxa jira nin saaxiibnahay oo cadnaan la yiraahdo wada joognay oo taliyo deegaan gabadha ka yimid halkaan intuu ka yimid markaan ugu yimid reer gabilay markaa so markaan saaxiibaan hayn aan noqonay ninkaas meherad buu ka shaqayn jiray qolooyin markaas ka yar laban oo xaafadii markaa meheradoodii buu ka shaqayn jiray inaan xaafadda markaa ka mid ah oo odayga meesha ninka meesha leh iyo adeeru yahay ayay sira jeclaadeen dee dadkuna way isjeclaan karaan walow isagu nin dan yara uu iska ahaa haddana dee waxa weeyaan adduunka iyo maalka iyo hantida midna lamay soo dhalan inay dee qof waliba wanaaguma ka mid labadaa qof ilaa xad way isjeclaayeen lama soo koobi karo say isugu weynaayeen labadaa qof waxaa dhacday isaga dad markii la ogaaday inuu inanta la hadlo shaqadii laga eriyey kadib shaqadii uu ka baxay rafaad badan uu soo maray inantii sidoo kale lagu ogaaday arrintii oo loo hanjabay kadib maalmaha ka mid ah cadnaan ay wada hadleen habeen isu yimaadeen ay ku tiri walaalo arrinkeeni saa ku dhamaado sababta iyo mushkiladda baan aba maalintan lahaayee ninkii maroodidaas markaan arkay baan tiri u tag inantii baan u tag inantii kadibna waxaan u geeyey warqad aan markaa anigu malaawaanan dhexda ka qoray oon cadnaan ahaan ku matalayo kadib warqaddii aan dhiibay warqaddii isagoo gacanta ku haysta adeerkeed baan iyayiin kadibna inanta adeerkeed markay warqaddii wuu ka jeexjeexay anigu markay intaas dhacday waan iska dhaafay waqti dambaan meeshii soo maray inantii oo dibadda fadhido meel xaafadda xogaa la soo eriyay markaa habeen midowaa halkii baan ka soo kaxiyey buulkii yar ayaan garanaysan ku noolaan jiray baan keenay halkii baan ku jiray buulkii daaxa ku dilay ku yaal halkaasna dibadda habeen iyo maalin baan ugu seexan jiray subaxina waan kala jiro kuuli helayo meel kala galayo waan meesha ku jabtay jabkaasna soo maray roodhi baan noo arsaaqay waxay mushkiladii sidii ahaataba
waxaa dhacday inay wadda xaaladda kusii jiri karo dhaqanna ma ahayn inay xaafad soo joogto anagu wax walba ilaalinayna waxna midahay walaashaya tartaan niyo qorshan doonay deetana adigu inaan aynan tahay maabtiino yaxay la ilaayo dinin aanu deysanaga isgaranayno in wanaagsan ah arrinkan kala hadlay waxaan niyo doonaynaa inaanu sameeyno qorshe yar adag oo ka duwan nidaamkii marka qorshahaas kaasna inaad ugu gacan naga siin doonaa horta ma xuma waxaad ii sheegtaa markaa waayahay qorshahaas waxaan doonayaa inaan inantii mid ku metelay in la dilay ma fahamtay in la dilay ku metelay inantii la dilay hadda ma ogta hawshaas waa hawl aad u adag way adag tahay waan ogahay laakiin systemkan doonaya adiguna qayb inta hawsha inta kale anaa fulnay niyo ninkaas hawshooda fulnay laakiin adiga qaybaan kaaga baahanahay waxaan kaaga baahanahay inantaas waxaan doonaynaa in meel CC camera aynu ku xidhan tahay hoosteeda dilka matalaadii uu ka dhaco beenbeena kadib si ay dareenkaasi u shaki geliyo dadkii waxaan baadhayay ama boolis ha noqoto ama ciidan ha noqoto ama familkii ha noqoto oo dilkii inantii la dilay looga sii shakiyo muuqaalkaasna aanu qofka si fiican u wada duubin muuqaalka marka gacanta lagu dhigo waxaan doonayaa inaad dib ka dhilid karaysaan oo ka turtaan haddana mar labaad markay shakiga ku qancaan horta dil dhacay oo waayahay ma ogtahay hadhow toleyn xaafadoodii caddayn loo baahanayo waan ogahay in caddayn loo baahanayo taas waan kasoo fikirnay waxaan u talagalay inaan iyada laftirkeeda geyno goobta dhakhtarka ugu horeeya qofka ugu horeeya soo qaada ee matalaya inaad soo qaado adiga noqdo dhakhtarkii la tago adigu aad xaqiijiso tiraa uu dhacay dilkani inantiina waalidkood markay ku yimaadaan ma sii eegi karaan ilmahoodii oo meesha dhex yaala wejigoo keliya waan ku ogahay horta waad ogtahay hawshaas inay hawl aad u adag tahay talabaad qodob baa jira markaad leedahay garanaysa waa lagu imanaya miyay dadkooda miynay doonayn in meydkii ay qaataan taas waa qaybaha taasi waa qaybahan u baahan garabka weyn lagu siiso waxaan doonayaa waxaa jira dad aan inta badan haybtooda la garanaynin oo qaar shilal ku dhintaa qaar jelmudooda ku dhintaa hawlahaasaa jira oo inta badan dawladdu iyo dadkana ay caasaan waxaan doonayaa inuu kaas noqdo qofkaasi oo aan isku beegno oo aan kaa ka dhigno hawshaas cidda amba nin ha noqdo amba naag ha noqdo qofka markaa aad soo gudbisaan labadaba cid u gaaraan u samayn doona maadaama uu qof familkii iyo xaafadii ka mid hawsha nagala shaqeynaya waxba naguma adkaanaya waan ogahay waad ogtahay horta annagu horta ummaddan u shaqeyna dadka tabaalaysan san ugu gargaari lahay dee horta shaqa waxaad ogtahay arrinkaas waana wax horta nin laba noo saaxiibo waxayna taariikh soo wada maray qof kale kama yeelan laakiin haddana ma ogsoon tahay in aanu shaqada xitaa ku way karo way dhici kartaa laakiin waan ka taxadirinayna taas in adigana shaqii dareen kusoo gelin say doontaba ha u dhacdo waxaan qabanaynaa horta waa arrin wanaagsan haddii sidaa aynu doonayno u socdo halkuu leeyahay u gaadhana arrin bila sharaf lagu sameeyo sababtoo ah labadaa qof markaan isu keeno ee isu soo jiidno ee aan kulansiino ee aan waalidadii kibirsanaa ee arrinkan ka hadlaya adduunka iyo lacagta u been sheegtay aan waxoodii waxba yahay ka dhigno ee iyagu ka qooma mooyaan waxay sameeyeen maalin ay munaasib ku tahay inay iyadii helaan oo aanay iyagu aaminsayin inayn helaynin ayaan doonayna inaan ka dhigno iyadii oo timidba oo goobtii soo istaagtay dareenkaasi waad fahmi kartaa farxaddaa waad fahmi kartaa cadnaana waxaan doonayaa inaan kiiskan isaga dhakada u saarno si aan isaga ugu cadaadino arrimahan doonayaana waxa weeyaan inaan samayno oo kuwana dareenkooda hoos u dibcino kuwana adigu waa hawsha haddaba horta ma xuma waad ogsoon tahay horta wax walba arrinkaas daynu ay yahay arrin aad u adag laakiin maxay ahayday adiga aan ku qaadi kari waayay haddaba ma xuma waxa la sameynaya waxa dhici karta inagu inaan meelaha qaar isku iman karno way wad ogtahay meelaha qaar bay isku iman karnaa oo haddaynu iskugu nimaadno dee in dee dad isgaranaya ma garanaysaa dee inaan daraasad ciyaarno oo aynan dee meelaha qaar isku salaamin ayn ma garanaysaa ayaa loo baahanyay maadaama hawlahan ay tahay hawl aad u adag oo anigana si aan layga shakeyn oo aniga si aan shaki layga soo qaadin moogtay waxaa jirta inaan barwaaqa la yidhaahdo oo nala shaqaysa oo markaa haddii xitaa aniga aad weydaan oo aan ogtahay aad aniga aad yeeri weydin hawsha xitaa dhammaynaysayo haddii xitaa iyada marka iyada haddii aad weydaan anaa kaloo aad la shaqeynaya markaa mar walba waxaa loo baahan yahay in horta hawshaa inagu systemka loo geliyo arrinka loo geliyo wax walba idinka taxadirtaan anugu aad baan taxadirinaa taliya waxaan samayn doonaa insha allah hawshaasi dee waa hawshaa inoo horta inoo sira deg deg baanan doonayna hawsha u fulino insha allah markaa anaa markasta kula soo hadli doonaa waxna inay qaldamaan inaad ka taxadirtaan hawshaa isku daya aad baan taxadirinaa insha allah markastaan soo wada hadlo telefonka soo wixii hawlo jira
أنا حركة أنت كلنا أنا أشكو حلك ما waxa ka odhan wada dhameystir أرنك قرحيس ما أنت أسوي كي أنا يسلق هذا النهار قرشاس أنا قال لكي ناصر يسودك لا يحيي وحنسو أرجني إن يتهي مال في عن وقرشها يجي ودني النقصي صورة جيل كرو أنت أسكدبنا مدة أسبوع وحقنا ستوصل أوجد كلا قرشيه أو أها من اللي بتجي سودا أو ذاك كلا كسوة معمولة ناصر ما أوجين قف كان حدا الله صادري وحياه لكن برواقه حبن كتسن عيدا كا مديدا يدلك دعي يوحنا أردن وحبيراتي وحكتيرين ما يسناهين قبطة وحكو حرني سي كاميرا سي كاميرا داس وجيدada kaliya tii laga lahaa waxay ahayd in uu rumo shakiga laga qabo in qof lagu dilay sidoo kale gaarigan aad arkaysaan waxa ka soo degtay barwaaqo waxaana gudaha ugu jira Naasir oo isna hawsha kor kala socda meel aan naga fogeyn goobta hawshan ka dhacayo ugu dambeyn aniga Yaxye waxaanu si toos ah u raacnay gaariga waana dhaqan Yaxye sax soo inaga imka hawsha horta soo galay qaybaheedii dharkii wiil isma gaari ka waraday horta ma garaaca magaalada wada xigir xitaa dharkii cid kuma garaac waa bedelo waxa naasir garaacta dhakhtarkii qaybta muhiimka ah bayna hadhay marka qaybta saadee hawl adag ay yadro isla habeennimadii markii aanu ka soo gudubnay qorshihii adkaa kaasi oo ahaa mid cabsidiisa iyo mushkiladiisa wata waxaanu si toos ah u garaacnay telefoonka Naasir annagoo doonaynay in aanu u sheegno in aanu si wada jira u dhamaystirno qaybaha noo hadhay qorshahayaga ee doctorka la kulankiisa iyo goobta aanu ugu talagalay in aanu ku metelno in la dhigay meydka waxa uu si naga codsaday in uu hawsha inta hadhay isagu dhamaystiri doono annaguna sidaa ayaanu ku kala tagnay waxaad samaysaan xalay toole xira awr dil baa ka dhacay degdeg in ciidanku u tagaan baa la doonaya si degdega in loo baadho halka warkeeda la doono soo ugu dhaqsaha badan la doonaya degdeg ha degdeg waa xalay toole weeyaan marka degdeg in hawsha loo galo isku daya dhaqsada hal igu soo warceliyo si degdega horta Cabdinuur wax walba aniga ku sharaxay systemkii arrimihiisa hayeen oo dhawaniga ku siiyay iyo marka anigu waa maadaama laba noo saaxiib aan nahay waxaan doonayaa inaad arrinkayga caawiso arrinkaas oo ah gabadh baan inantii laki ayaan qolka mid kala dhigay moogti kadib marka inantu way dhimatay familkooda dib ku yimaado waxaan inantu way dhimatay cid gasha oo aad tusto ama cid aad tusasaana ma jirayso hal qof ayaad fasaxaysaa halka qofna waxa weeyaan waa adeerkeed oo waa khadar cid kale oo u fasaxaysa habeeraatay ma jirto wax walba haday dhacaan amar hawsha hadhuto armiga yimaadaan may hawsha wala fiidiyay wax walba wala dhameeyay wax walba wala diyaariyay wax inaga imanaya habeeraatay ma jirto ina wax inaga imadaa ka fikirnado hawsha hadhow waxaan yimaadaan wax walba wala dhameystay wax walna wala dhameeyay qolo kala hawsha qacan qabatay dhan walba marka ayada arrinkan in wax ka yimaadaan adigu ha ka eegin hawshna saas ku dhantay sidaan ku subaxnimadii markii uu yimid khadar goobtii dhakhtarka waxa ku diyaarsanaa Naasir waxaana uu u sharaxay qaabkii uu dhacay dilkani ka bacdina si uu ugu qanco doctorka ayuu raaciyay khadarna waxa uu galay qolkii meydka oo ay laki ku diyaarsanayd kadib markii uu wajiga marada ka rogay waxa uu arkay qofkan in ay tahay laki naxdintii waa uu ku dul ciiray kadibna doctorku dibadda ayuu u soo saaray sidaasna waxa noogu rumoobay qorshihii intii noogu adkayd oo ahayd miridhada yar ee halka mar ah ee wajigeeda la tusayo si ay ugu qancaan taasina way noo suurta gashay maxaanu haynaa inaad ilaahay baa ku dhaariy xaragoyseen ma bilaadanima meenan ayda la harsada doon saamka xaafadda ugu faanta filinkan reerkii gabadh ay astaan bay doonayaan dhakhtarkii baa saa loo taagan yahay waxa weeye qof la aasana lama hayo
gabadha miyaan la sugayn tan midii dishay horta wuxuu lagu sameeyay maxaa lagu sameeyay sodigii guriniyo dadka jeelal manjununka ku dhintay iyo kuwa shilka ku dhintay dadka lahayn iyo waxaasa dawladdu aastaabay mid soo qabanayna wixii ma xil bas ka saaray soo warda dadka malaga nafta ka saaray oo dhiman bawaayay waxa hada markaa maxaad iga damacdaan horta heede annaga ma reerkayga mid xasuuq ay gelinaysaa marka horena jant heerka meermeer waxa ku tii maxaa meermeeriya ma reer dhakhtar taagan baan meermeeri karaya oo meedkaygiina tusadahayo oo aan waasan soo ku arka heerka tusada ka deeday miya oday kaliya arkay reerkantiisi kale miyaan u baahnay inantu oday kaliya dhalay yaanay family ka dhalan maxaynu isku ogeyntii inay arkaan bal looma ogola ee ka joog arag wax aragay si arkaan warma xume ana joojinay adu ma waxaad ii sameyn kari weydii intaad ugu tiri ila balabay wadinka uu ila balabay koodhi naasir qoyinkan ugu jiray de maalmihiina wadiga uga weyn la soo hadlayay de uu ila balamo wuxuu arrintiiniyo de dadku sheegayo qaar aan la gelin de boqolaal baa la asad dawladuna asad la gelin garas de wuxuu way soo meelda kala danil iyo naag wuxuu doon noqonayo miyaan ka waraya soo qabo maanad oran waxaan aniga kala tuuraya ma aniga noo fududeynaysa aniga kala tuuraya balaayada la soo doonaysa aniga kala tuuraya muddadan dhaaf meesniyo war ilaahaga ma taqaan ilaahayna mid ka doonaysa mis fahna sheekadu intii loogu talgalay way dhaaftay sheekadu imka family iyo reer bay gaadhay gabadhii god baa lagu hubsanaya reerkiina astaamay doonayaan aniyo inaad xaragay aniga dibadda hay saarnay wadogto hooyaday aabahayni miibay joogan in ariyana ayda la harsan gabadha iga soo hawsheedii kala intay de soo dhimanayaan bay sugin maalin baa laba noqotay shilba ma aanu dhacin bariya de maxaa dad baa la garanaya dad ku wada waa hadintaan de waxaan la gelin war wuxuu iska kuwa darbi jifida dhinta meel qaar la soo yeelin dhaxamu jiila kalmaan qaar lay ma jiila war dadkan bustayaal siiyaniyo war ma xad oo dadka walaynsan ninkan waa deemalaynaye sawtan inagii saa inoogu foorartaa min inaan iska jeedin ma adrin maanta soo xijinayaayo aanaya war meelun ka doon burcanaha ku dhintay war adigu weyn helayna ka bax adigu hawsho waxbaba imika inoo hadhow halkii ugu dambaysanay hada ilaahaga garanayso iga soo hagaag wariya iga soo hagaag war iga yeeso imika ninkii doonayay marka aniyo anu sababtan kuma xaween muhiimadu niyo arrintii daway yar wada cakran tahay ninkii yaxyay kan wada joognay xaafadiinay qofka astan bay doonayaan maalmahan dubay yar dhigeysan maxaad haysaayo cid meeshaan ku gelinay ma ila horta cadays badan baa xitaa anaga haystaan iyo gowdhe xaqi familki xaqi ciidanki inta aan wax la arkaana ka ilaalinaya cadayska ugu weyn deemankan yaan ugu haystaan way marka waxa jiranayo imika wax dhintay habarnaha timini jir iyo waxa la sheegayniyo meeshan sheel mamnuuka nin ku jira oo dhintay oo aan cid lahayn haybiya marka de nooc ma garanaysaa de hawshu iska socon jiray dawladda iyo xanaa de waa si wanaagsan soo qaad nin baa waligiiba haddaba kaas markaa soo dalacna soo adigu soo dalaco hawsha inta kale aniga yaxyay hawsha si fulinay isaga guriga ugu diyaara ilaa ma nin baa wada wana ninna waligiiba soo qaad adoo soo hawshina kale ka diyaar annaga waxa alla waxa kale hadintaan noqdo ana u tagay waxa alla waxa kale aan dhameystiray hawsha ka bax saas isku wanaad weey okay annaga ugu hadleen war hawsha waa saasan ku sheego way soo dhantahay kowdhay ninkii marka naasir baan asaragnay qaybta ciidan kamid ahaa hawshiini wuxuu sheegay nin baa jinnuunku kaasa ayaan ha gabar ma taydeedana gabadh miya la helay gabadh mid kale gabadha dumarka meedhay xagee inuu joogan dumar ma haynay marka adigu waxa laga baahan yahay hawsha inta kale guriga dhameystay warana xaafadada qaar loo hor istaagayo in albaabka ay soo dhaftay diidayo oo kala mid kale maroor dilaac abdisalaam qolkiiba ku furiyay ma ugu wada galay waa khadar u soma in soo diin maayay inaga meeyrnay waxa sameeysaa adigu hawsha imka iga fududeeyo dhakhtarku uu soo qaaday soo buubsintay intii dhakhtarka tuweyn baynu ka gaarsiinaa hawsha ninkana soo qaaday intaasina guriga sii galay kuna qayb kama aha qayb bay kii askartana waxa weey marka dhakhtarka tagto si aanay reer ugu soo guurin oo saddex askari waa dhooliga ka yaaca oo gaariga soo saaray si aan loo dirin mid kale dhooliga soo saaray oo ka soo dheeranaya waxanba inagoo hawsha si kala tuurno meeshiisii wax madhamay annaga meesha albaabka qori la taagnaanay jooga gilla wala meeray gaarigana wuxuu midna samay qaadista markay noqoto maalinta waad isdhagoolinaysa cidna ma dhegeysanaysid aad abtiina wax la odhanaysaa un fadhiiso oo
qaar uu dhalay baan odhanaya nin odayga qabtay adigu ka baxo odaygan uu dhiig calool adeeg samee macaan buu leeyahay imka fariisiyo odayga fariisiyo halka ayuu ii soo dhaafi maanaya arag sideen annaga waxaan kala war ka bax soo inta ay waan dhameeyay bas daba shum ko sra intii isku leeyahay war faraha saas sigaadiga war marniyo maalmo آخر ثبان من آن لهان دفتر may jirin haba yaraatee wax farxada waanu dareemaynay sababtoo ah dadka oo dhami waxay u murugoonayaan oo ay u dhibaataysan yihiin qorshaha aanu soo degnay danta aanu ka leenahay way caddahay balse marka aad dusha ka eegto waa xaalad adag waanu ku qasbanayn inaanu la murugoono oo aanu la oyno waa dareemi kartaa saaxiibka ama waalidka oo murugoonaya misana aan ogeyn xaqiiqada si kastoo ahaataba waxa nala gudboon waa samir murugo badan iyo xaalad dan imika aanu ku jirno waxaanu maruun eegaynaa halka aanu u soconno iyo danta aanu ka leenahay oo isu bedeli doontaa farxad ugu dambeynta